warbaahinta looma ogolaan inay gudaha u gasho goobta uu qaraxu ka dhacay oo ahayd xarunta dowladda hoose ee Xamar. Qof ismiidaamiyay ayaa gudaha u galay hoolka shirarka xarunta gobolka halkaasi oo markii dambe uu isku qarxiyay. Dadka dhaawacmay ilaa hadda aan la xaqiijin tiradooda waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal. Ma cadda tirada dadka ku dhintay qaraxan, balse waxaa la soo sheegay in ismiidaamintan ay ku geeriyoodeen Mahad Cilmi oo ahaa gudoomiyaha degmada Waaberi iyo Sabax Asad oo ahayd gudoomiyaha degmada Cabdicasiis iyo afhayeenkii hore ee gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane ahaana agaasimihii waaxda nadaafadda ee gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa xaqiijiyay dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxa qarax maanta ka dhacay xaruntii gobolka dad badan oo runtii mas'uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday. Weli waxaan ku dhaawacyadii iyo dadkii sidii wax u gaareen saacadooda gudoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii qaliinka lagu jiraa. dhowr gudoomiye degmana wax ku noqdeen. Qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka hoolkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin Arbacay ahayd dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirka lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday wax ilaahay qoray ahayd. Nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si wax u geystaan oo isqarxiyaan. marka wali ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyay iyo mid isqarxiyay uu yahayba. dib ayaana rabaa inaan ka soo sheegno waxaan shacabka gobolka Banaadir u baaqayaa inay isjiyaan waxa dhacan tahay wax qadar ah oo ilaahay qoray gudoomiyaha gobolkan uu nool yahay haddana maaragtay la tacaalayo caafimaadkiisa. Waqtigoo ahayd casar liiq iyo goobta uu qaraxu ka dhacay oo goob aad loo ilaaliyo warbaahinta looma fududeynin inay xog waafi ay ka hesho goobta uu qaraxu ka dhacay. daawada halkan iga dambeysay waa xarunta maamulka gobolka Banaadir ee uu maanta ka dhacay qaraxa ismiidaaminta ahaa. Waxaa xilliga qarax uu ka dhacay la sheegaya inay ka socday shir ay ku lahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir shirkaas oo loogu magac daray shirka tubta amniga gobolka. Waxaana ka soo baxay warar kala duwan qaraxa ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee galabnimadii maanta. Qaraxan mas'uuliyiin maamulka ka tirsan ayaa dhimashay dhaawac oo ka soo gaaray dadka ku dhaawacmay ee magaca leh qaraxan ilaa hadda la xaqiijiyay waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. waxaa jira mas'uuliyiin kale oo maamulka ka tirsan oo iyagana dhaawacyo ay soo gaareen ilaa hadda tirada rasmiga ah ee qasaaraha ay ka dhashay weerarkan ismiidaaminta lama cadeen. Maxamed Qays Xasan Maxamed, Home Cable TV, Muqdisho. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.